dagaalka saddexaad ee adduunka ayaa saaka ka qarxay ma la oran karaa dunida marka loo fiiriyo weerarkii qaawanaa uu Mareykanku ku qaaday Iiraan iyo sidoo kale jawaabtii degdega ahayd ay ka bixiyeen ama ay ka bixisay dowladda Iiraan iyo sidoo kale falcelinta uu caalamka oo dhan ka bixiyay iyo sidoo kale xuutiyiinta Yemen oo iyaguna sheegay in arrinkaas ay ka bixin doonaan falcelin degdeg ah sheegayna in xabad joojintii Mareykanka iyo iyaga u dhaxaysay ay halkaas ku jabtay intaan kula wadaagin daawadayaal qodobadii ugu dambeeyay dagaalada ka socda bariga dhexe iyo saaka wejiga cusub uu dagaaladaasi ay yeesheen wax ka codsanaya inay YouTube-ka ku soo birto sidoo kalena muuqaalkan adeegay saarto leegto wax naga caawinaysaa in muuqaalku uu meel fog gaaro haddii aan ku bilaabo Mareykanka ayaa saaka 3 xarumood oo Iiraan ay ku kaydsan jirtay hubka nuclear-ka ku qaaday weerar kaas oo ku sheegay Mareykanku in gebi ahaanba 3 xarumood oo nuclear-ka lagu keedin jiray gebi ahaanba uu ay saaka burbureen Mareykanka ninka la dhaho Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo qoraal ku soo qoray bartiisa Twitter hore loo oran jiray haddana la dhaho X ayaa sheegay in Mareykanku uu saaka 3 goobood oo Iiraan ay nuclear-ka ku kaydsan jirtay uu dagaal ku qaaday sidoo kalena howlgalkaasi uu guuleystay laguna burburiyay halkaas nuclear-kii halkaas ku bacriminaysay Iiraan halkaasna khatartii ay dunida ka baqaysay waa sida uu Trump sheegayna halkaas ku burburtay sidoo kalena waxa uu sheegay in diyaaradaha Mareykanku ay si nabad ah ku galeen howlgalkaasna ku soo qabteen sidoo kalena si nabadana ay ugu soo noqdeen gudaha Mareykanka waa isagu sidoo hadalka u dhigay sidoo kale gadaal wuxuu ku sii raaciyay in hadda loo baahan yahay in nabad la qaato sidoo kale xuutiyiinta Yemen haddii aan eegno falcelinta ay saaka ka bixiyeen weerarkii qaawanaa uu Mareykanku ku qaaday Iiraan oo awal si dadban ugu jiray ama garab ugu ahaa nimanka la dhaho Israa'iiliyiinta waxa ay sheegeen xuutiyiinta Yemen in xabad joojintii uu Mareykanku la galay saaka halkaas ay ku burburtay waxaana laga baqsan yahay in ay iyagu aan la tashan Iiraan ay bilaabi doonaan saacadaha soo socda weerar ka dhan ah Mareykanka sidoo kale Iiraan waxa ay sheegtay in haddii uu dagaalkan ku soo biiro Mareykanku in ay gabi ahaanba saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay bariga dhexe ay ku qaadi doonto weerar isla markaasna burburin doonto sidoo kale horay waxa ay ugu baaqday Iiraan in haddii Mareykanku uu dagaalkan soo fargeliyo uu ay gabi ahaanba ay xiri doonto marinka muhiimka dunida oo dhan u ah oo lagu magacaabo Khubrus kaas oo saliidda caalamka oo dhan ay ka gudubto saaka maraakiibta marinkaas maraysa oo sawiraan laga soo qaaday sida ay wararka caalamku baahinayaan ama sawirkan halkan inay ka muuqda ay baahinayaan ama sida sawirka halkan inay ka muuqda aad ku aragtaan maraakiibta marinka saaka maraysa cabsi badan ayaa laga dareemayaa waxayna sheegayaan shirkadaha dhaqdhaqaaqa maraakiibtaas la socda in xawaaraha ay badiyeen maraakiibta marinkaas maraysa iyagoo ka baqsan in marinkaas gabi ahaanba la xiro ama ay khatar ka soo gaarto dagaalada saaka ka soo cusboonaaday ama wejiga kala yeeshay aan dhehe ama wejiga kale saaka dagaaladaas yeeshay dhanka kale haddii aan fiirino jawaabta ay saaka Iiraan ka bixisay weerarkii uu Mareykanku ku qaaday xarumaheeda waxa ay 400 oo goobood oo ka tirsan dalka Israa'iil ayay weerar ku qaaday magaalooyin kale waxa kamid ah Tel Aviv Haifa iyo Qudus iyo ilaa xeebaha waaweyn oo Israa'iil ayaa saaka weeraro ay ku ekeysay Iiraan kaas oo iga jawaab celinayso weerarkii uu saaka Mareykanku ku qaaday uu ku qaaday xarumaheeda nuclear-ka dhanka kale mas'uul u hadlay dowladda Iiraan ayaa sheegay in Mareykanku uu saaka weeraray meel cidla ah oo ay mar horeba Iiraan ay ka raratay hubkeedii nuclear-ka taasina Mareykanka waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn iyo in uu sirdoon ahaan u fashilmay iyo sidoo kale in khasaaro badan uu soo gaaray maadaama halkaas weerarku saaka ka fuliyay la yiri gabi ahaanba halkaas waxba nooma yaalaanin sawiraantan halkan ka muuqda waxay muujinayaan ama sawiraantan waxa baahisay
warbaahinta Maraykanka si gaar ah warbaahinta Maraykanka aad u taageerta ayaa baahisay waa sawiraan uu qaaday dayax gacmeedku waxa ay muujinayaan in mar horeba ay Iran ay ka raratay nuclearkeedii xarumaha uu saaka Maraykanku ku qaaday weerarka sida uu hadalka ay sheegeen mas'uuliyiinta u hadlay Iran iyo sidoo kale waxaas waafaqaya sawiraantan saaka la soo bandhigay oo dayaxmeedku qaaday oo warbaahinta Maraykanku soo bandhigtay oo la leeyahay Maraykanka saaka weerarku qaaday waa fashil waxaad arkaysaan gawaari badan oo kasii baxaysa goobihii uu awal hore u yaalay nuclearka dad badan waxa ay leeyihiin Iran Maraykanka ayay ku marhabaabinaysaa hubkeedii nuclearka weli meesha waa yaala inkastoo warbaahinta caalamka ay saaka leedahay ilaa iyo hadda weli wax shacaac ah oo ka dhashay duqeymihii uu saaka Maraykanku geystay ilaa iyo hadda lama hayo maadaama wixii saaka la weeraray ee ahaayeen nuclear kaasna ay ka dhalan karto haddii la weeraro dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid tahay shucaac waxaan usoo noqonaynaa marinka muhiimka ah ee Qubrus haddii la xiro maxaa ka dhalan karaa marinkaas waxaa ka dhalan karaa in gebi ahaanba uu dunida ka dhaco sixir barar ballaaran kaas oo saameyn ku yeesha dunida oo dhan wararkeena soo socda ayaan ku falanqayn doonaa marinkan iyo waxyaabaha ka dhalan kara meelaha uu marinkan ku yaalo dad badan oo la socon ayaa jira waxa u dhaxeeya Cumaan iyo sidoo kale Iran buu dhaxeeya haddii marinkan la xiro maxaa ka dhalan kara wararkeena dambe ayaan daawadayaal ku falanqayn doonaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya hadda halkan la soo gaartay mar kale wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto maas